dhulka aanu ku noolnahay waa uu isbedelaa oo mararka qaarkood wajiyo cusub ayuu yeeshaa. malaayiin sano ka hor qaaradaha adduunku aad bay isugu dhawaayeen. marar badan waxaa dhaca dhul gariiro muujinaya socodka uu dhulku sameeyo. meelaha qaarkood adduunkana ka mid ah waxaa ka dhashay jasiirado cusub sida jasiiradan badda dhexdeeda kasoo baxday. haddaba siday culimadu sheegayaan, qaaradda Afrika waxa ay u kala go'aysaa laba qaaradood oo qayb uu waddanka Soomaaliya ku jirana ay ka go'ayso qaaradda inteeda kale. cadeymaha muujinaya arrintaas ayaa ah kuwa hadda aad u muuqda oo ka dhacay dhulka Cafartu degto ee Itoobiya, halkaasoo tan iyo 2005 dhulku uu sameeyey godad aad u waaweyn, taasoo meelaha qaarkoodna gaaraya ilaa 100 mitir, taasoo markaa keeni doonta in biyaha baddu ay dhulka godka noqday ay buux dhaafiyaan, markaasna u kala jaraysa qaaradda Afrika laba qaaradood. laakiin arrintani ma aha mid dhacaysa habeen iyo maalin gudaheed ama waqti dhow toona, waa process qaadanaya malaayiin sano. qaaradan cusub ee samaysmaysa ayaa ka koobnaanaysa Soomaaliya, Djibouti iyo qaybo ka mid ah Itoobiya, Kenya iyo Tanzania. si maalin walba macluumaadkeenu ku soo gaaro, waxaad samaysaa subscribe. haddaad rabtid inaad wax ka ogaatid macluumaad xiiso badan, waxaad bixisaa fiidiyoga.